madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay saraakiil xigeenada alifleyda dableyda dhammaanba qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo qoysaskooda sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya awgeed. waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay bishu tahay 12 Abriil ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan doonayay inaan halkan uga hambalyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida sidaad la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaan qaran oo aan marna loo qaybin karin qolo iyo qabiil waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta haybadda qaranka Soomaaliyeed mar walba waxay kale u taagan yihiin inay guulo la taaban karo ay ka gaaraan la dagaalanka nabadiidka waxayna si buuxda ay nabadiidka ugala wareegeen deegaano badan oo ay hore dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay ugu dhibaateyn jireen. waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahadceliyo Allaahina khalqay marka labaadna ciidanka geesiyaasha ah ee u naf waayay ama u huray naftooda difaaca qaranka Soomaaliyeed. waxaa kaloo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraad ah oo ay dowladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah. runtii weli ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in dowladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tiraba leh gudana kara waajibaadkiisa qarannimo. sir ma aha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed. waxay arrintaasi ku gaareen geed adeegnimo iyo geesinimo la isla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan nabad buuxda inay ku soo dabaalaan dalkeena. insha Allah waqti aan fogeyn Soomaaliya waxay dib mar kale u yeelan doontaa ciidan ku filan hubinta higsiga qarannimo. higsigeena qarannimo waxaa ka mid ah in la helo Soomaaliya oo mid ah, Soomaaliya oo nabad ah, xorna u ah danaheeda qaran. ciidanka xoogga waxa uu ka mid yahay hay-adaha ugu muhiimsan ee mas'uulka ka ah inay xaqiijiyaan sidii lagu gaari lahaa higsigaas qaran. waana hubaa inay hore uga soo qayb qaateen gaarista higsigaas qarannimo haddana ay heegan u yihiin inay xaqiijiyaan ujeedooyinkaas qaran ee sumcadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celinayo. sidaas awgeed waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto inaan mar kale shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba aan ka codsado inay taageeraan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar walba u taagan inay naftooda u huraan qarannimada Soomaaliyeed. waa Maxamed Andar, telefishinka Badda Cas 24.